munaasabadani xariga looga jarayay qaar ka mid ah wadooyinka ku yaala gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho dhalinyaro waxgarad Maxamuud oo ku furayay wadooyinka danwadaagta iyo sayidka ayaa dhawaan waxaa dib u dhis ku sameeyay maamulka gobolka Banaadir oo ka duulaya mashruuca dhisa dalkaaga markii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu goobta munaasabada xariga looga jarayay wadooyinka danwadaagta iyo sayidka uu gaaray waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay qaar ka mid ah cutubyo ka tirsan ciidamada Bambeyda kuwaasi oo salaan sharaf ka qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. intaasi kadib ayaa cutubyada ciidamada ka tirsan Bambeyda waxay goobta ku soo bandhigeen gaardaka ciyaar aad u qurux badan oo ay la dhaceen dadkii ka soo qayb galay munaasabadda. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo munaasabadda ka jeediyay khudbad aad u dheer ayaa waxa uu sheegay in dhismaha wadooyinkan ay tilmaan u tahay sida shacabka ugu go'an tahay inay wadankooda wax u qabtaan intii kraankooda ayna ku hergeliyaan mashaariic horumarineed. ayadana waxaan leenahay hambalyo waa mashruuci dalkaaga dhiso oo shaqeynayo nool la arkayo muuqdo waaye dadka Soomaaliyeed waa isku tashadeen wixii dhimanna ilaahay idinkiisa la isku tashado sida aan muxuu ahay u wada garab istaagno hawsheena wadada sidii ahaa jirtay sawirada ku cad ee maanta siday tahay aad iyo aad ay u kala duwan tahay isku mid maahan waagi dhaweyd siday ahayd wadadan iyo maanta sida ay tahay quruxda ka muuqday bilicsamida wada kasta oo magaalada ku taalna ilaahay idinkiisa sidaas oo kale ayaa loo qurxinayaa loo bedelayaa loo dhisayaa annagoo ku tashanayno jeebkeena waxa ku jira aan banaanka wax badan ka fiirinaynin wixii aan banaanka ka helmo waa kaalmo waa maadsan yihiin waa kab laakiin hawsha annaga inoo madaxweynaha oo khudbadiisa sii wata ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in wadooyinkan burburkii ka muuqday iyo maanta sida laga dhigay ay muujinayso in shacabku uu tashaday ayna doonayaan inay qurxiyaan xaafadahooda oo qof kasta Soomaali isku dayo $1 ama 20 kun oo shilin Soomaali ah inuu ku bixiyo dalkaaga dhiso waxaan aad u baa muddo yar oo kooban in dalkeena uu dhismaayo oo aan arkayno waa maanta waxaan soo furnay oo hadda ayadana ka nimiday wadadaas muxuu ahay buulxuubay la yiraahdo ee Madiina gasha ayadana Zooba kilometer 5 ka leexatay ilaa Madiina soo furnay ayaduna sidaan oo kale ayaduna wada meel god ah oo biyo galeen ah oo aan la mari karin oo xaafadaha dhexdooda lagu leexdo oo baabuurtu ay xaafadaha carruurta ku leeydo ayay ahaan jirtay maanta wada weyn oo maxaan ku raad nadiif ah oo gawaaridu ay si toos u marayso biyuhuna aanay fariisanaynin ayaa laga dhisay halkan sidoo kale meeshan dhexe siday u go'go'naaday boholo u aheedo biyuhu ay u haleeyeen waa la ogyahay maantana waa taa inta la dhisay biyihiina meel loo yeelay oo aan dubi doonin haddii aan la yiraahdo waxa aan qabsan karnaahi sidaas ayay u weyn yihiin waxa aan qabsan karnaa sidaasay u weyn yihiin sidaasayna u qurux badan yihiin aan ku dhiiranno aan ku degdegna haddii aan la yiraahdo waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo guddiyadii kala duwanaa ee labadaas wadaba ka shaqeeyay ee dad kasta lahaa siyaasiyiin lahaa mas'uuliyiin dawladda oo kala duwan lahaa shacabka deegaanada lahaa ururada maxaan ku raahdaa bulshada ee haweenka iyo dhalinyarada iyo kulli lahaa ee ka wada qayb qaatay maxaan ku raahdaa dhismihii muxuu ahay wadadaas ugu dambeyntii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku amaanay maamulka gobolka Banaadir sida uu ugu soo dhalaalay kaalintii ku aadanay dib u dhiska wadooyinka iyo waliba doorka ay ka qaadanayaan sugidda ammaanka caasimadda Muqdisho waxaana madaxweynaha furitaanka wadooyinkan ku wehlinayay xubno ka tirsan labada gole gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale iyo mas'uuliyiin kale Cabdulqaadir Cumar Cabdulla Fiidka telefishinka madaxa bannaan ee Bulsho TV gudaha magaalada caasimadda ee Muqdisho.